السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijka taxanaha ee taariikhda Soomaalida. Qodobada aan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah Soomaaliya maxay marxalado soo martay qaybteedii koowaad aynu maanta halkan ka bilaabi doono ayadoo taxanayno si ahaan doonto hadduu Rabbi raali ka noqdo. Waxaa kaloo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa abwaanada ka mid ah abwaan halgan u soo maray magac weyn ku leh bulshada Soomaalida ayaan halkan ku soo qaadan doonaa. haatanna kusoo dhawaada qodobadii aan idin sheegay oo faahfaahsan. waa mar kale iyo barnaamijkeeni taxanaha taariikhda Soomaalida. channelka haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, kambalelkana furo, like iyo share kama marno. Soomaaliya waxa ay ku taalaa geeska Afrika. waxa uu ku fadhiyaa dhul baaxadiisu dhan yahay 635,541. waxa uu xuduud la wadaagaa dhanka bari waxaa ka xiga badweynta Hindiya, waqooyina waxaa ka xiga dalka Jabuuti, galbeedna waxaa ka xiga dalka Itoobiya, halka koonfurta ay ka xigto dalka Kenya. dalka Soomaaliya waxa uu yahay dalka labaad ee ugu xeebta dheer ee qaaradda Afrika. waxa ayna leedahay xeeb dhererkeedu gaaraya 3,333 kiiloomitir. tirada dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 8 milyan oo qof. Soomaalida boqolkiiba 60 waa reer baadiye, boqolkiiba 20 waa reer magaal, halka boqolkiiba 15 ay yihiin beeraley, halka boqolkiiba 5 ay yihiin kalluumaysato. khubarada ka faallota taariikhda Soomaaliya waxa ay sheegeen in ereyga Soomaali uu u taagan yahay laba erey oo la isku geeyay, kuwaasi oo kala ah soo iyo maal, iyadoo ereyga soo micnihiisu yahay soco halka ereyga maal micnihiisu yahay lis. markii labadooda la isku geeyana ama la isku daro waxa ay noqonayaan saca maal ama maal saca. caasimadda dalkeeni waa Muqdisho, tan labaadna waa Hargeysa, tan saddexaadna waa Kismaayo, tan afraadna waa Burco, halka tan shanaadna ay tahay Baydhabo. gobolada ugu horeeyay ee xornimada qaatay dalkeena waxa uu ahaa gobolka Waqooyi. waxa uuna xornimada qaatay 26 bishii Juun sanadii 1960, halka gobolka kale ee koonfurta ay xornimada qaateen 1 bishii Luulyo sanadii 1960. haatanna isku diyaariya qaybta dambe ee barnaamijka. haatan kusoo dhawaada taariikhda Maxamed Ibraahim Warsame oo ku magac daaraa Hadraawi, oona ahaa qof magac ku leh bulshada dhexdeeda. Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxa uu ku dhashay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco ee sanadii 1943. waxa uuna ka dhashay qoys faqiir ah oo ka koobnaa 9 caruur, 1 gabar iyo 8 wiil. Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi markii uu ahaa 10 jir waxa uu aaday dalka Yemen, isagoo halkaas kula noolaa adeerkii. waxaa halkaas ka bilaabay dugsiga, isagoo halkaasi ka keenay magaca uu ku caanbaxay ee Hadraawi. waraysi uu ku bixiyay ayuu ku sheegay magaca asalkiisu inuu ahaa Carabi, oona la oran jiray Abu al-Hadra, oo u bixiyay macalinka dugsiga, isagoo ahaa qof ardaydu aad u jecel yihiin.
misana qosol iyo sheekooyin badan. Ay Soomaaliya xornimada qaadatay, gaar ahaan gobollada waqooyi iyo koonfurta, dib ayuu ugu soo laabtay dalka, gaar ahaan caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Hadraawi waxa uu ku caanbaxay gabayada iyo heesaha bulshaawiga ah, maadaama uu bulshada magac weyn ku lahaa. Gabayadii ama heesihii uu ku dharbaaxay dowladdii majaraha uu u hayay Maxamed Siyaad Barre ayaa sababtay in la xiro, waxaana lagu xiray magaalada degmada Qansax Dheere, waxa uuna xirnaa muddo ku dhow 5 sano, laga bilaabo 1973 ilaa 1978. Barnaamijka taxanaha ee taariikhda Soomaalida qaybtiisii koowaad halkan ayuu noogu egyahay.